safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya ee dalka Qatar mudane Cabdirasaaq Faarax Cali isla markaana horey u soo noqday safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan oo dhawaan laga soo bedelay ayaa soo gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar waxaana waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamiim bin Hamad Al Thani kulanka uu la yeeshay amiirka dowladda Qatar ayuu danjiraha Soomaaliya u gudbiyay salaan iyo codsi uu ka siday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona kulankan ay ka soo baxeen go'aano midho dhal ah waxaan la xiriiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan weydiiyay oo waxaan u sheegay inaan maalinka Arbacada la kulmahay amiirka waxaan weydiiyay tala ahaan maxaan kala hadlaa oo qodobo ah oo fariin ah aad ii dhiibaysaa hal fariin buu isoo faray oo runtii wax weyn ah igu salaanka bacdina waxaad u sheegtaa in maaragtay aad nooga codsataa codsigaygana aad gaarsiisaa jaaliyadda Soomaaliyeed haday gudaha joogto iyo haday dibadda joogtaba in ay ka shaqaysan karaan dalka Qatar oo loo furo ciqaamadihii qofkii shaqo hela hadda waqtiga hadda maanta la joogo qofkii shaqo hela haduu yahay xirfadle iyo haduusan xirfadle ahaynba ciqaamad ma heli karo oo baasaboorka Soomaaliga ah oo wata awgeed kulankii maantay dalabkii madaxweynaha markaan geeyay meeshii baa lagu aqbalay amiirkiina meeshii baa amarkii ku bixiyay in loo furo Soomaalida ciqaamadaha sida ummadaha kale ay ugu furan tahay meeshii baa amarkii ku bixiyay insha Allah taala bari shaqadayda ugu horeysana dabagalkeedii iyo siday ku furmi lahayd waxaan rajaynayaa maalmo gudahood qof kasto Soomaaliya oo shaqo ka hela dalka Qatar in ciqaamadii ay u furan tahay si fudud oo ka sahlan sida waliba jaaliyadaha kalena sidii amiirku uu amray inuu ku heli doono taasna waxay ahayd runtii arrin aad loogu farxo dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo soo jireen ah waxaana dowladda Qatar ay ka taageertaa Soomaaliya dhinacyo badan waa kan mar kale danjiraha Soomaaliya oo sharaxaya waxa uu kala kulmay dalka Qatar wadankan oo runtii si weyn maaragtay ii soo dhaweeyay Soomaalidana aad u jecel waxyaabo fara badan oo diblomaasiyadda markii taariikhdeeda dib loo raaco aan la sameeynin noo sameeyay oo ay kamid ahayd markii la magacaabay todobari gudahood inay ku soo jawaabaan oo aqbalaadaydii ay ku keenaan markii la aqbalay oo aan maalinkii ku laba ahayd waxa la iga qabtay waraaqihii koobiga ahaa oo wasiirka arrimaha dibadda wasiiru dawlaha iga qabtay waa maalinkii labaad oo aan dalka markaas joogo maantay oo ay ii tahay 8 barina waxa la iga qabtay waraaqihii aqoonsiga oo amiirka oo runtii maaragtay 8 bari gudahood in maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda koobiga ka qabata iyo head of state kii asaguna ka qabta waraaqihii aqoonsiga waa waxyaabo aan ka dhicin diblomaasiyadda markay ugu yaraato bilo inay qaadatay ahayd taasna waxay keenaysaa maaragtay wanaaga iyo maxabada labada dal ka dhaxaysa danjiraha cusub ee Soomaaliya ee dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali wuxuu aqoon durugsan u leeyahay dalalka khaliijka oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa kana shaqo bilaabay sida uu sharaxayo 1984 markaan ka baxay dugsiga sare ayay ahayd markii iigu horeysay inaan dalka Soomaaliya dibadda uga baxo dalkii koowaad oo aan imidna wuxuu ahaa dalka Qatar magaalada Dooxa marka waxay ahayd magaaladii iigu horeysay ee aan booqdo ama dalkii iigu horeeyay aan booqdo oo ka baxsan dalka Soomaaliya taas waa taariikh gooni ah oo xilli hore ahayd waqtigaas ima suurtagelin jaamacad doon baan ahaa inaan jaamacad ka helo waxaan marka u gudbay Sacuud Carabiya oo aan jaamacad ka helay jaamacadda la yiraahdo Jaamacadda Malik Sacuud halkaas aan waxbarashadeedii 85 ilaa 90 ku dhamaystay kadibna burburkii markuu dhacayna Soomaalidii dibadda u baxday baan ka mid noqday markii dib la isugu soo noqdayna oo shaqooyinkii Soomaaliya iyo gudaheeda laga bilaabayna waxaan ka soo shaqeeyay dalka Imaaraadka muddo ka shaqeynayay muddo ka bacdi haddana waxa safiir la iga soo dhigay wadanka Cumaan oo 3 sano iyo bar aan safiir ka ahaa oo hadda la iga soo bedelay iyo halkan Dooxa oo maantay safiirkii Soomaaliya aan ahay
marka intaasoo dhan markii la isku daro waxay ku tusaysaa inaan aqoon badan u leeyahay wadamada khaliijka. ugu dambeyntii safiirka ayaa waxa uu la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar oo ka mid ah jaaliyadaha loogu tixgelinta badan yahay, wuxuuna u soo bandhigay qorshihiisa. qofku markuu dalka dibadda uga soo baxo wuxuu matalayaa dalkiisa, wuxuu noqonayaa wax kasta uu sameeyo waxaa loo celinayaa dalkii uu ka yimid. sidaa darteed anigoo aad ugu faraxsan sumcadda ay ku leeyihiin iyo taariikhda ay ku leeyihiin oo meesha la iiga cadeeyay ilaa hadda inaan lahaynin wax criminal record ah, dembiyadan waaweyn ee la record gareeyo ah oo jaaliyadda Soomaalida oo ku jirta jaaliyadaha ugu waaweyn in ilaa hadda aan lahaynin. taas runtii waa wax lagu ammaano oo aad u weyn oo aad u fiican. waxaan leeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed arrintii aan laba laabno, ciqaamadihii waa laynoo furay, waxyaabaha kale oo naga dhiman oo waxbarashadu ka mid tahay, ay ka mid tahay markis thaqaafi wax la yiraahdo ama meel xarun jaaliyadda Soomaalidu ay leedahay ay ku xigto, iyo dadka waaweynaaday ciqaamadahooda oo gaaray maaragtay da'da beeshinka ciqaamadahoodii ayagana oo ciqaama daa'ima in ayaguna ay helaan. qodobo fara badan baa iigu jira waajibaadkayga oo jaaliyadda ku saabsan markii laga reebo waxyaabaha dawladdii Soomaaliya iyo dawladdan dhexdeeda ah. waxaan leeyahay marka jaaliyadda aan isgarabsanno, isla shaqayno, furaska aan helnana aan ka faa'iidaysano. sumcadeennuna aad bay u fiican tahay, intii hore inaad ka laba laabtaan oo aad sii laba jibaartaan ayaan adinkana idinkula dardaarmayaa. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, magaalada Dooxa.